dareemi karin ama uusan deeqsii karin dadka qabowga marka waa ka xunnahay inaan intaan waqti aan ka qaadno laakiin munaasabadaan u joogno ayaa ah munaasabad la sii karo waqtiga aad nasiiseen waan inkaaga mahadcelinaynaa awalan thumma golaha wasiirada nagu soo ixtiraamay inay nagala soo qayb galaan golaha baarlamaanka labada aqal iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee hortayna fadhido oo nabadoonnada iyo akhyaarta iyo hay'adda culimada iyo kulli gudoomiye ku-xigeenadii hore saxaabtayda ahaa iyo kuwa cusub intaba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii ma rabo inaan waqti dheer aan ku qaadano halkan ragga saxaabta aan nahay way soo shaqeeyeen waqtigoodiina runtii juhdigii ay geliyeen gobolka banaadir iyo dowladda hoose intaba waxa maanta laga dhaxlaya ayay qayb ka tahay ayaguna shalay dhaxleen shalakay ka dhaxleenna daraad u dhaxlay daraadkii dhaxlana maalinta kasii horeysa u dhaxlay marka waa xarig isu dhiibka oo hadda ka dhawaajinaya wasiirka taladu waa meerta ilaahayna asigaa bayda tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dadkan bay dhex wareegaysaa marka xil wareejinaa layidhi xilka tegid maaha marka hadday wareejinta aadna beritaad la wareegi doontaa waa ertacliyo marka saaxiibkay cali iyo caano boore iyo xildhibaan farxaan iyo xogeeye xiirey iyo guddoomiye ku-xigeenkii basma oo naga maqan intaba aniga maalmo kooban ama muddo kooban ama bilo kooban aan wada shaqaynaynay intii aan wada joognay waa isqaadanaa runtii waana jeclaysta xataa haddii ay ila sii joogi lahaayeen runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanaa inkastoo ragga saxaaboo baasha doondoonaa ay jireen oo mararka qaarkood isdhahay na ku daadkaaba qaado maxaggaas tareenkaas oo xagga ka fuulaba laakiin haddana runtii qofka markaad wada shaqaysiin aad isbaranaysiin qalbi furaanta niyad samida iyo wada shaqaynta intaba waa uga mahad celinayaa muddada koobnaad aan wada shaqaynaynay marka cali hadda hadaladiisii waxaan islahaa meesha u jiro waaba ka keenteen intaad gey doontiin laakiin hadda waxaa malaya shawarmadii shaahiyaa qabtan doonaya marka waxaan rajeynaynaa haddii ilaa yidhaahdo shawarmadii shaahi u sheegayey maalmahan uu ka sheekeynayey in shawarmadii shaahi aysan qabanaan rajeynaynaa haddii ilaa yidhaahdo mas-uuliyaddana waa shay waa wax culus cirkaa diiday dhulkaa diiday bini aadamkaana qaaday kuwa qaadaana ka mid nahay aniga maalintii kow aan xilka la wareegayo saaxiibkay mugaab aan kala wareegayay howlkan aan kula wareegayay dhagacaddii rag badan oo jooga ayaa hadda halkaan joogo halkaan iyagoo dhalata karfanjeer ma laha anoo saan u hadlaayo ayaa ilaahay qalbigayga kusoo riday markaasaan dhahay karfanjeer malika halku dhigayna ii naqato qandiga dabadaha laga tolo iyo jid waa laga dhaxla wax jeeb lagu qaado laga dhaxli maa iyo hal doolar dalkaaga ku dhiso iyo saaxib hortaada hagaaji iyo halku dhigyo waxay ahay runtii bartilmaameed noo ahay oo aan shaqadayna ku beesgaraynaynay haddana haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa halku dhigyo noocaas oo kale ah inaan la nimaadno oon dadka iyo dalkaba anugu shaqayn haddii ilaah yidhaahdo waan sheegnay inaan wada jirnaan israbnaa oo wada isqaadanno inaan kala jirna ma rabno inaan wada jirnaan rabnaa mas-uuliyaddana saarana waxaan ku guda karnaa wada jir iyo is-ogolaan ku guda karnaa runtii odayaal waayo arag ah maaragtay muddo badan kasoo shaqeeya dalkan oo kamid ah xildhibaan dhamanacad iyo akhyaar kaloo fara badan iyo taliya carabow iyo dad mas-uuliyiinoo muddo badan soo shaqeynaya xildhibaan shariif iyo ayaa halkaan fadhiyo waxaan aaminsanaha anaga sidaydaba qofka weyn ee waayo aragga ah aqoontiisa iyo khibradiisa iyo dhalinyaronimada xoogga ku jiro in inta laysku kaba laga faa'iidaysto
inaan midna la dayacnaan aaminsannahay haddii ilaahay yidhaahdo waana ka faa'iidaysan doonaa khibraddaasna waa ka faa'iidaysan doonaa waxaan rabnaa marka ninkii maalin soo shaqeeyey wax buu ku dhaamaa marka inaad ka faa'iidaysato waa laga maarmaan calaa kulli xaal raggan waa rag soo shaqeeyey ragada shaqo ku cusubmaan ayaga laftarkooda yabo axmed diiriyo guddoomiye ku-xigeen u ahaa waa wada shaqaynaynay muddadii aan gobolka joogay ciise guure guddoomiyuhu ahaa isaguna degmooyinka hodam iyo daynayla degmooyin badan uu soo maray sheekh xasan jimcaale waa nin la yaqaano dowladdii ka soo shaqeeyay dowladii hore oo dhan ilaa maxamed mursan markii dambe u ahay la taliye heer wasiirow soo noqday cabdicasiis kadaalika faysal sidoo kale marka waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu ku halaabo hagaraa jirte xoogaa aqoon la-aan ma jirtaan isleenahay marka kuwii maaragtay waxa laga sugaaya qabta allaha naga dhigo midda labaad dadku waxay naga quudaraynayan waxaysan shalay naga sugayn shalayna ma aqoonin laakiin wayna barteen maadaama ilaahay onigowna soo celiyey wax badanay naga quudaraynayaan waxay naga quudaraynayaanna kuwii qabta allaha naga dhigo ilaahayna hanagu guuleeyo welina waxa waaye karfanjeeb maladeeda meeshaydii ay igu qoran tahay beri hadda waxaan keenay tiishowga laba noogu dhiga midna hadda ha lagu tirto midna hadda ha lagu tirto cabadda caleenta harsheeha saddex bakeera bakeeri way qaadaa way ku filantee ha lagu riday ha lagu wada gaduudsado inta hal bakeeraan oo caleena lagu khasaari lahaa abal bakeeriy qaadaa ayaa beri har socoto marka waxaasoo idil waxay tahay aan dadka waxooda u dhaqaalayno haddii ilaa yidhaahdo calaa kulli xaal guddoomiyihii aan bedelay oo xilka aan ka bedelay guddoomiye cumar meel fiican ayuu wax soo gaarsiiyey asigana waa ku mahadsan yahay asiga iyo garbihiisiba way ku mahadsan yihiin iyo intii la shaqaynaysay soomaalidu waxay tidhaahdaa far kaligeed fool ma dhaqdo gacanna kaygeed ma sacbiso cid kaygeed wax qaba karta waa la waayey iskaashiga wax lagu qaba karaa iyo wada jir laakiin cid kasta meeshay joogto day dowla ka noqoto oo qof kasta meeshuu joogo ku foorarsado dadku waxba soo gaari maayaan marka waxaan leenahay war ogow waxaad haysa ammaano waaye waxaad adigu leedaha maaha marka ku hormanaan leenahay cid walba waxay haysee waxaad haysa meesha mudan aan marsiino taasna waxaan leeyahay waa un dardaaran aan u dardaarmaayo dadka asxaabta ah iyo ragga meeshaan joogo waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadna wayn kaaga mahad celinaynaa sidaad noo qadariseen oo aad noogala soo qayb gasheen xil wareejintaani marka insha allah waa wada joognaa waana wada shaqayn doonaa asxaabteennan haddii la yidhaahdo arbacadii aan isu nimidnay waa wada sheekaysteen guddoonkaa isbedelaayo ku-xigeenada cusub iyo ku-xigeenadii hore wada dardashay arbacadii aada loo kaftamay haddana caawa cashadii lagu kaftami lahaanaa qaadaya insha allah waana mahadsantihiin marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh